wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye iyo taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland Sareeye Gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhismaha kulliyadda saraakiisha ciidamada booliiska Soomaaliland oo markii ugu horeysay ay yeelan doonto kulliyad ciidanka booliiska Soomaaliland lagu tababaro saraakiisha. dhagax dhiga dhismaha akaadamiyadda saraakiisha ayaa waxa laga dhagax dhigay magaalada Hargeysa waxaana dhagax dhigaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka socota dawladda Ingiriiska iyagu maalgelinaysa dhismaha akaadamiyadda saraakiisha ciidamada booliiska Soomaaliland. taliyaha iyo waliba wasiir ku-xigeenka iyo madax kale oo aad u tiro badan ugu horreynna taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland Sareeye Gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa halkaasi isagu ka soo jeediyay hadallo. Booliis ahaan waxa farxad weyn oo ah in maanta naloo dhagax dhigo kulliyadda saraakiisha ciidanka booliiska taas oo qodoma aha haddaan wax ka yar taabto waxay ka mid tahay arrimahani siyaasadda madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland in hore loo mariyo haddii xagga dhismaatay haddii xagga tababarada tay haddaan imika waxa dhamaaday laab casri ah oo laga sameeyay qaybta baarista miyada dhexdeeda waxa kale oo isna imika gabagaba kaatiin ay ciidanka talisku iyo saraakiishu haddii la yiraahdo wax ka cuni doonaan oo isna gabagaba imika talisku yaala horena dhismayaal hore u fuliyeen haddaan halkaa intaa kaga tago waxa dhinac socda maadaama dhismayaashii ay socdaan tababaro kala gol ahayn hadday tahay saraakiisha saraakiil xigeenka alfleyda dableyda intaa dheer siminaar gaagaaban oo la siiyo saraakiisha kala duwan ee ciidanka booliiska ee kooxaha baarista hadday faraan noqoto hadday siinka noqoto oo iyaga laftoodana ragga imika ka taageera Ingiriiskii ay yihiin ragga lagjarada bixiya ee tababara halkan waxaynu maanta u joognaa dhagax dhigga kulliyadda saraakiisha oo wax weyn ka tari doonta ciidanka booliiska iyo qaranka Soomaaliland oo aynu maanta dhagax dhig doono oo ay bishu tahay 22 bishii 9aad ee 2018 mas'uul ku hadlayay madaxda ka socota dawladda Ingiriiska ee iyagu maalgelinaysa dhismaha akaadamiyadda saraakiisha ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa isagoo halkaasi ka hadlay waxaan uu sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin dhagax dhigga dhismaha akaadamiyadda isla markaana si weyn ay ula shaqeyn doonaan ciidamada booliiska iyo waliba xukuumadda Soomaaliland. gabagabadina wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa isagoo halkaasi hadal ka soo jeediyay. runtii waa markii u horeysay aynu aasaasno ama aynu dhagax dhigno ama aynu ku fikiro aynu ku hamino in kastoo dee waqti badan naga qaadatay haddana inaynu kulliyadan dhisno cid kastoo ka qayb qaadatay hawsha iyada ah horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeyaan waa dadaal ay ummadda u galeen waa dadaal ay muxuu ahaa sidii dalkan loo dhisi lahaa nabadgelyada loo ilaalin lahaa ay u galeen aad iyo aad baad mahadsantihiin. Cabdirashiid Abdulwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.